waxaa dunida dacaladeeda si weyn loogu xusay xuska haweenweynaha adduunka ee ku beegan 8 Maaris sidoo kalena waxaa degmada Seylac si weyn loogu xusay xuska maalinta haweenka adduunka ee ku beegan 8 Maaris munaasabadan ballaaran ee loogu xusay xuska maalinta haweenka adduunka ee ku beegan 8 Maaris ayaa waxaa si weyn u soo agaasimay ururka Al-Aamin madaxdani ka soo qayb gashay munaasabadan lagu weyneynayo xuska haweenweynaha adduunka ee ku beegan 8 Maaris ayaa waxa iyagu kamid ahaa barasaab ku-xigeenka gobolka Nisalel Cabdiqaadir Aadan Yuusuf iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka dawladda hoose degmada Seylac Saacad Daahir Cige waxa isaguna sidoo kale munaasabadan kala qayb qaatay haweenka ku dhaqan degmada Seylac xuska maalinta haweenweynaha adduunka ee ku beegan 8 Maaris gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Nisalel xildhibaan Axmed Yaasiin Maxamed Barkhad iyo sidoo kale isuduwaha ganacsiga ee gobolka Nisalel haween dhalinyaro iyo marti sharaf kale ugu horeyntina waxa halkaasi ka hadlay madaxda ururka Al-Aamin ee degmada Seylac qaar kamid ah haweenka ku dhaqan degmada Seylac isla markaasina halkaasi ka soo jeediyay hadallo ay ku weyneenayaan xuska maalinta haweenweynaha adduunka ee ku beegan 8 Maaris iyagoo halkaasi ku soo bandhigay ciyaaraha Seyliciga ah ee hidiyo dhaqanka ay u leeyihiin shacabka ku dhaqan degmada Seylac maalin weyn oo maalmaha kale ka mudan oo maalintii haweenka ah haweenku waxay mudan yihiin sharaf iyo cisi bay ku leeyihiin wadanka haddii xagga ilaahay laga helo oo xuska maalinta ay leeyihiin haweenku iyadoo lagu daldalgeliyo ama lagu muujinayo awoodda ee waxqabadka ballaaran ee lagu arkay haweenku ay leeyihiin oo taasoo aynay haweenku ay buuxiyaan kaalin kasta inay tahay maalin weyn oo maalintii haweenka 8 Maarso waxaan ku hadlayaa magaca ururka Al-Aamin iyo magacayga gaarka waxaan farxad u haynaa maalinta haweenka inaan halka ka soo agaasino aliyaha saldhiga madaxda magaalada oo dhan baan salaamayaa aniga oo garabka haweenka kulmiye ah oo maxay maanta waa maalin weyn maanta maalinta laga salaamayo banalo sidoo kalena waxa iyaguna halkaas hadalka iska daba qaatay madaxdii kala soo qayb gashay haweenweynaha ku dhaqan degmada Seylac xuska maalinta haweenka adduunka ee ku beegan 8 Maaris aanay ka daalina maalin kaliya oo ay daliidu kuma taqaanad gacmaha qabsataan ayuu isbedel weyn ka dhacayaa gobolka waa wax qiimo leh hooyadu waa wax qiimo leh hooyo waa ta haliyay kasta ka dhasho waa iyada weyn ta soo xambaartay ta dhabarka ku siday waa iyada weyn kulli waa hooyo wuxuu siiyay islaamku xaq ugu weyn buu siiyay ay leedahay waa hooyo weyn waa maalintii ugu ballaarnayd laga xuso maalinta haweenka ee 8 Maaris maamuus kule ururka soo qaban qaabiyay ee Al-Aamin mahad gaar ah oo celinaynaa kulli xafladda ballaaran ee qaban qaabiyay waa maalin muujista midnimada iyo wadajirka haweenka waa maalin ay haween gacanta isqabsadaan oo wax hadlaan dantooda iyo waxa ka dhiman iyo waxa la qaban doono waa maalinta ay muujiyaan horumarka munaasabadan ayaa noqonaysa munaasabadii ugu ballaarneed ee lagu weyneynayo xuska maalinta haweenka adduunka ee ku beegan 8 Maaris waa Cali Axmed Yiriye Cali Dhagadalool TV-ga caalamiga ee Bulsha TV magaalada Seylac